kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah faahfaahin dheeraad oo laga helayo kooxda Al-Shabaab oo maanta weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday saldhigga ciidamada Gorgor ay ku leeyihiin deegaanka Burdaar oo ka tirsan gobolka Hiiraan iyo afayeenka wasaaradda gaashaandhigga oo ka warbixiyay khasaaraha guud ee ka dhashay weerarkaasi dowladda federaalka oo uga digtay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho in kooxda Al-Shabaab ay qaraxyo ka fulin rabaan caasimadda una soo jeedisay 5 qodob oo laga hortagi karo qaraxyada kooxdaasi cabsi xoogan oo dadweynaha soo food saartay iyo waliba digniinta ka soo baxday dowladda waxay uga dhigan tahay laamaha ammaanka ayaan idin soo gudbin doonaa madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta booqday ciidanka Soomaaliyeed ee tababarka ku qaadanayo magaalada Asmara ee wadanka Eritrea sidoo kalena warbixin ku saabsan xaaladda wadanka la wadaagay ciidamadaasi iyo sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa Mahad Salaad oo maanta heshiis la saxiixday hay'adda sirdoonka ee wadanka Itoobiya qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownaa daawadayaal kooxda Al-Shabaab ayaa maanta waxaa weerar qaraxyo ku bilowday ay ku qaaday saldhigga ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya gaar ahaan Gorgor ay ku leeyihiin deegaanka Burdaar oo ka tirsan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa la sheegay in weerarkaasi kadib halkaasi uu ka dhacay dagaal xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada kumandoska Gorgor ee ku sugnaa deegaanka Burdaar iyo waliba xubnihii shabaabka ahaa ee weerar ka soo qaaday sida warbaahinta ay u sheegeen dadka deegaanka waxa uu socday dagaalka in ka badan 2 saacadood iyadoo dagaalka uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jiro mid nafeed iyo waliba mid hantiyadeed oo shacabka deegaanka soo gaaray dhinaca kale afayeenka wasaaradda difaaca Soomaaliya Generaal Cabdullaahi Cali Caanood oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in ciidanka uu fashiliyay weerarkaasi kadib markii uu helay xogta qorshaha Al-Shabaab waxa uu sheegay afayeenka in ciidamada ay dileen 12 ka mid ah kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday kadib markii ciidamada ay ka hortageen weerarka iyo dhagarta kooxdaasi sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada xoogga ay ka dhaawacmeen 3 askari oo kale isla markaasina ay ku raad joogaan xubnihii kale ee qaybta ka ahaa weerarka Al-Shabaab ay ku soo qaaday deegaanka Burdaar ee gobolka Hiiraan weerarka lagu ekeeyay saldhigga ciidamada Gorgor ee deegaanka Burdaar ayaa imanaya xilli maalmihii la soo dhaafay uu gaabis ku yimid howlgalkii ka dhanka ahaa Al-Shabaab ee ka socday deegaanada gobolka Hiiraan oo ahayd halkii ugu horeysay ee uu ka bilowday ama uu ka unkamay kacdoonka ka dhanka argagixisada Al-Shabaab weerarkaasi ayaa imanaya iyadoo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya bayaan ay soo saartay maanta ay uga digtay shacabka Soomaaliyeed weeraro qorsheysan oo kooxda Al-Shabaab ay doonayaan inay la beegsadaan goobaha shacabka isugu yimaadaan iyadoo dowladda ay shacabka u soo jeedisay talooyin ka kooban ilaa iyo 5 qodob ciidanka qaranka iyo shacabka isgarabsanayo ayaa sidoo kale dowladda ay sheegtay in si xawli ah guulo ay uga gaareen dagaalka lagula jiro khawaarijta toddobaadkan waxaa ciidanka qaranka iyo shacabka guuldarrooyin waaweyn ay ku hubiyeen cadowga deegaanadii lagula dagaalamay ee Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dowladda waxaana sidoo kale dowladda ay sheegtay in laga dilay kooxda Al-Shabaab in ka badan 200 oo xubnood dowladda Soomaaliya waxay boogaadisay shacabka oo garowsaday hagardaamada kooxda Al-Shabaab si buuxdana u garab istaagtay ciidanka qaranka kuna biiray dagaalka lagu ciribtirayo khawaarijta oo ku jiro xaalad naflacaari ah ayaa waxa ay wali faraha kula jiraan ayay tiri dowladda faldambiyeedyo ay ka mid yihiin dilalka shacabka burburinta kaabayaasha sida ceelasha beeraha buundooyinka wadooyinka iyo wixii kale ee lamida sidoo kale dowladda ayaa sheegtay iyada oo kaashanayso laamaha amniga qaranka oo gudanayo waajibaadka sugidda amniga
sidoo kalena difaacayo shacabka ay ka go'an tahay in ciqaab kulul ay marsiiyaan cadowga khawaariijta. dhanka kale dowladda waxa ay fartay shacabka inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah si looga hortago dhagarta cadowga. xogaha sirdoonka ee la socodka dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaana sidoo kale la kordhiyey si looga hortago tallaabo kasta oo ay ku doonayaan in shacabka ay ku waxyeeleeyaan kooxdaasi. talooyinka dowladda ay u soo joodisay shacabka ee la doonayo inay qaataan iyagoo si dhow ula shaqaynayo laamaha amniga si looga hortago dhagarta iyo faldambiyeedyada kooxda khawaariijta waxaa ka mid ah: 1. in shacabka ay muujiyaan feejignaan guud gaar ahaan inta uu socdo howlgalka beegsiga khawaariijta. 2. si gaara dowladda in ay milkiilayaasha huteelada, maqaayadaha iyo goobaha kale ee ganacsiga ay u soo joodinayso inay muujiyaan taxadar dheeri ah. 3. muwaadiniinta waxaa loo soo joodiyey inay si taxadar leh xaaladda ula socdaan islamarkaasina ay yareeyaan tegista laga maarmi karo ee goobaha khatarta uga iman karto. 4. waxaa la xasuusiyey milkiilayaasha guryaha, huteelada, garaashyada iyo goobaha kaleba in ay il gaara ku hayaan dhaqdhaqaaqyada ka soconaya goobahooda. ciddii aragtaa ficillo shaki lehna waxaa laga dalbaday inay si degdega ugu soo wargeliyaan laamaha amniga. qodobka 5aad ee dowladda ay soo saartay ayay ku sheegtay in ciidamada amniga ay ka go'an tahay in ay sii wadaan howlgallada qorshaysan oo lagu burburinayo kooxdaasi al-shabaab. sidaasi darteedna waxaa laga dalbaday shacabka inay dulqaad muujiyaan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maalintii labaad ku sugan magaalada asmara ee waddanka Eritrea ayaa maanta iyadoo uu wehelinayo madaxweynaha waddanka Eritrea Isaias Afwerki waxa ay kormeereen xerada tababarka ay ku qaadanayaan ciidanka cirka Soomaaliyeed ee ku sugan waddankaasi. xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo safarkiisii hore ee bishii luulyo ee sanadkan ku tegay dalkaasi dowladda Eritrea uga codsaday in ciidanka tababarka u joogo qaar loo tababaro qaybta ciidamada cirka ayaa dowladda Eritrea uga mahadnaqay kaalinteeda dhismaha ciidanka Soomaaliyeed. madaxweynaha jamhuuriyadda oo salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan dufcadda koowaad ee ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa cirka ayaa sidoo kale warbixino ka dhageystay qaar ka mid ah saraakiisha ciidankaasi kuwaasi oo la wadaagay madaxweynaha inay diyaar u yihiin kaalintooda inay kaga qaataan dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab lagu xoreynayo dalka iyo weliba dib u dhiska dowladnimada. xasan sheekh maxamuud ayaa ciidamada tababarka ku jiro uga warbixiyey xaaladda dalka iyo guulaha dhammaystirka u baahan ee ay soo hoyeen ciidanka xoogga dalka iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanayo. waxaana uu ku ammaanay adkaysiga ay muujiyeen inta tababarka uu u socday isagoo intaasi sii raaciyey in shacabka Soomaaliyeed ay ka sugayaan in ay ka dulqaadaan kooxda al-shabaab. ugu dambayntiina daawadayaal agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA mudane Mahad Maxamed Salaad iyo agaasimaha sirdoonka iyo nabad sugidda Itoobiya ee loo soo gaabiyo NIS mudane Temesgen Dinku ayaa maanta heshiis ku kala saxiixday magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Itoobiya. labada dhinac ayaa ku heshiiyey in labada sirdoon ee NISA iyo NIS ay yeeshaan wada shaqayn ku qotonto isdhaafsiga xogta muhiimka iyo xoojinta dagaalka wadajirka ee lagu hayo kooxaha argagixisada. agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka mudane Mahad Maxamed Salaad ayaa tilmaamay in heshiiskan uu yahay mid micno u leh labada dal ee dariska iyo sidoo kale ammaanka bariga Afrika. labada sirdoon ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo dareensan muhiimadda labada wadan ay u leedahay ciribtirka kooxaha argagixisada ayaa sidoo kale muujiyey siday uga go'an tahay inay horseed u noqdaan argagixisada in laga sifeeyo geeska Afrika. heshiiskan ayaa imanaya iyadoo horaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ay kulan ku yeesheen magaalada Addis Ababa ku heshiiyeen
xoojinta iskaashiga dhinacyada ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada. guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.